kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta, aqoon-yahanka ururada haweenka, salaadiinta iyo duubabka ka soo jeeda mid ka mid a beelaha dega gobollada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadir waxa ay kaga warramayeen kulanka aayaha beesha dhexdeeda iyo doorka ay xilligan ku leeyihiin in ay ku yeeshaan dowlad wanaagga dalka. xubnaha ka qaybgalayay kulankan ayaa sidoo kale waxay aad u dhaliileen xildhibaanka beeshan ku matala golaha shacabka baarlamanka federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in uu la safan yahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dhalishan dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in taasi ay caqabad weyn ku tahay doorka beeshan ay ku leedahay dowladda federaalka ah ee dalka. Ibraahim Maxamed Amiin iyo Xasan Bayaamin Xasan Indhool oo ka mid a odayaasha dhaqanka ka qaybgalayay kulankan ayaa sheegay in aysan doonaynin in beesha caqabad ay ku noqoto dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaanka ka soo jeedana uu ku baaqay in uu wax ka bedelo siyaasadda ku wajahan dhinaca mucaaradnimada dowladda. iyo haddii ay tahay dowladda hadda dalkan mas-uulka ka ahba in baaqa halkan laga soo jeediyey laga jawaabo. beeshana waxaan u sheegayaa in ay ka tashato si aysan u dhicin mar dambe tanoo kale. hadda waxaa khasaaray 3 sano 3 sano qofkii mushaar ku qaatay magaca uu mushaarka ku qaadanaya yani waxaa waaye waa aan waxba ku qabanin. maa ninkaan nin keligiis shaqo soo doontay oo wasaarad yimid, waa nin dad magacood ku yimid meesha. beeshuna waa inay tashataa oo ay maaragtay sidaanoo kale si aysan u dhicin laga tashaday mudan tahay. dowladda uu la shaqeeyana maadaama loo sheegay in uusan maaragtay hadda annaga noo shaqayn, ayada laftirkeedana aan ka codsanaynaa hadda inay jawaab fiican ka soo bixiso arrinkaas. dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliya in ay madax qaran si ay isha ugu hayaan dhulboobka xildhibaankaasi uu wado. waxaan si buuxda u cadeynaynaa in uusan beesha ku metelin xildhibaankaasi kalsoonida beeshuna uu waayay. aqoon-yahan Xuseen Nuur Geesey oo ka mid ahaa xubnihii shirka ka hadlay ayaa ugu dambayntii waxa uu warbaahinta u aqriyey war murtiyeed laga soo saaray kulankan. beelweynta Hilibi Daarandoole waxay si buuxda u cambaaraynaysaa falsafada guracan ee xildhibaanka baarlamanka federaalka Soomaaliya ku metela beesha Hilibi Daarandoole Cali Maxamed Cumar Cali Balcad, kaasoo inta badan hawshiisu noqotay inuu mar kastaaba mucaarad noqdo isla markaana uu ka soo hor yimaado hanaanka dowladnimo ee haatan dalka ka jira. beesha waxay si cad u xaqiijinaysaa xildhibaankaasi inuu yahay mid aan ka warqabin beesha uu ka soo jeedo oo kursiga uu ku metelo, isla markaana maalin ka mid ah maalmaha inta uu xilka hayay deegaan doorashadii laga soo doortayna gaarin, booqanin, warna ka haynin dadka uu kursigaasi ku metelo, taas oo ah qodob dastuuri ah oo u yaala xeer hoosaadka baarlamanka federaalka Soomaaliya. beesha waxay ugu baaqaysaa madaxda qaranka, golaha shacabka iyo golaha dowladda Soomaaliyaba in xildhibaankaasi uu yahay mid aanan ku shaqayn talada tusaalaha beeshaasi, isagoo doonaya danihiisa gaarka inuu mar kasta wato, wuxuuna waayay kalsoonidii guud ee beesha. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.